السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا مدشنا جوعي سنة فضلا احتاج ولي سبسكرايب سارين علامة كودت كل فوق قبل الكلام فرو لايك فيديو كنا راعي سوتا وحنا عاونين ضد بنجارو ما أنت وحوض شيء كذي بارت تو كذي هذا صوتا وانتي هرصوتا شيء كذا نقرأ حيصون إبراهيم حبايا يس واسمي مشيكي وقتي على واسمي بل كان أن تجابني وكل فنا يا ساعتي من كواح صباح يميل بهلا ولاش سياتي أنا هوري أي كوش لي تجاوين نفس هذا كوالجين أي كتره إبراهيم أي فرحسن أو كنت بالله ميل سكب بهلاتين وقدام بيت دقيقة أي كل ساعتي أي كل ساعتي نساس أي كخرابي ساعة إبراهيم وكده بحيا ميل بهلا وسمي bartaas ayuuna ka duulayaa ileen wacaatee fufadilla oo carriya booshii wuxuu isku bedeshay geedkiina ayuu kasoo dhex baxay uu soo dhacay Ibraahim wuxuu dhahayaa alxamdulilah aniga hadda waa nabad qabaa laakiin xaggan seebaan ku imaaday seebaan ku imaaday ayuu dhahayaa isweydiinayaa saacadda ayuu taabanayaa saawa u shaqaysmi weysaa geedkii ayuu fiirinayaa oo dhahayaa ruuxi waxaan geedka ayuu fuulay oo taabtay meeshii boosha ahayd markaas ayay isku xirantay oo qaraxday Ibraahim waxaa suurtagelisay inuu hawada ku tuulo oo dhaho alla ay badbaadiya waa ujeedaan lafaha ka soo horaye gabar Aasiya la yiraahdo ayaa u sheeday ku boodaysaa oo badbaadinaysa Ibraahim oo sidii dafadii camal u boodaysaa qof diyaarad saaran ayaa dhahayaa sida tan Allah ugu dambeyn waa helay dhagaxyadii mid ka mid ah meeshuu yaalana waan ogahay gabadhii ayaa Ibraahim keenaysaa meel aad u fiican oo nabad ah Ibraahim ayaa dhulka lagu soo tuuray sidii qashinkii waxayna ku dhahaysaa waryahe isbadbaadi xoolayow Ibraahim wuxuu dhahayaa aan waxba iga sheegin gabadha waxay dhahaysaa oo markaa ku badbaadaymiya isla markiiba waxay imaadaya meesha ninkaas oo ka soo baxay diyaarad ninkii ayaa u dhahayaa ugu dambeyn anigu waan idin helay meel ay iga aadi kartiin ma aha ninkii ayaa ku soo ordayay Ibraahim Aasiya u sheegay ayuu ku bootay Ibraahimna gadgadaal ayuu u baxay markiisa loo haadiyo Aasiya ayaa tiri Ibraahim muxuu ka rabaa wiilka Ibraahim ayaa yiri ma aqaan ninkan wuxuu naga rabo ninkii ayaa yiri maanta waa idin dilayaa meel ay iga aadi kartiin ma laha saasan ha qarne sakiciliya Ibraahim ayaa ninkii tuuraya waxay walaashiis u soo sameysay oo dhagaxana ninkii ayaa dhahay waxaas waxa igama tarayaan kaas waa jabiyay ee wax kale ka soo xoolayo gabadhii ayaa ka waran kan haye waxba ku shubtayba Ibraahim la arday oo hawada la gashay ninkii waxa ka waysaa gacantii ayuu isku xirtay inda wax dhanba waa nolosha oo ka shaqsanay Aasiya Ibraahim waxa keentay gurigeedii oo ku tiri oo soo fadhiso xoolayo xagee albaabka taagan tahay way u shubtay shaah ayadana wax shubtay shaahi way sheekaystay waxay tiri iga raaliho hadda waan ku gafay asan wax la male anba waa qaayay waxay leedahay waxay ku dhaysaa sidee ku timid meeshan Ibraahim wuxuu dhahayaa ma aqaan sida meesha ku yimid gabadhii ayaa farfaraynaysa Ibraahim alaabtiisa Ibraahim ayaa dhahayaa naheed alaabta iga farfaran hooyadii ayaa lacag iga soo bixisay qalbooshkii masqir waa Ibraahim ayaa sida caruurtii wax xun farfaro oo ku ciyaaraya gabadhii ayaa tiri wax waxaan ku ciyaaraysin Ibraahim ayaa yiri waxaani waa awoodda khaaska ah anaana iska leh anaana la igu talagalay waxaana ii wadaa dhagaxaas ayuu raadinayay ninkii soo ceersanay Aasiya ayaa dhahaysaa waa waray ninka maanta ma waxa soo raadinayay oo ma waxa soo raadinayay ayay tiri ma waxa soo raadinayay ku tiri Ibraahim ayaa yiri intaas ayuu noo daba joogay ana marabo inaan siiyo waxaani waa dhaxalkayga Ibraahim ayaa xasuusanaya suu kaga soo dhacay meeshiisii oo iska murugoonaya gabadhii Aasiya ayaa murugoonaysa oo dhahaysaa iska raali ahow
ninkii waa uu soo baxayaa maadaama waxaa ka burburtay diyaaradii uu watay. Wuu soo soconayaa wuxuuna dhulka dhigayaa qolof yar uu watay. Qolofta ayaa kasoo baxaya nin jina wuxuuna ku dhahayaa jinkaygiyow dhagaxii waa soo waayeen ee maxaa sameeyaa. Ninkii ayaa dhahayaa waryahay waxaas kaama qoro ee baalkay ii keen. Ninkii ayaa dhahayaa dhagaxaas way iga awood badan yihiin iskumana dhigmaane maxaa sameeyaa. Ninkii ayaa dhahayaa waxaa u sameynaysaa adag ku taalaa ee aniga waxaa ii daran dhagaxaygii. Mid hore ayaan usoo haray midkayga kale ayaa ii dhiman ee midkayga kale sii. Ninka ayaa helaya awood khaas ah oo kugu siiya kii madowga oo qoslaya u dhahaya dadkii dhintoo soo baxa dhulka ayuuna ku dhufanayaa bahal feera waxaana kasoo baxayaa dadkii dhintay oo dhan oo qolfof noqday. Ibraahim ayaa u shaqeynaysaa saacadii oo dhahaya alla yees waa sameeyay saacadeedii. Aasiya ayaa dhahaysa oo waxay oo koro dhaqso ah sameysay. Ibraahim ayaa dhahaya bal arag waxaan sameeyo. Saacada ayuu ku dhufanayaa waxa uu sameysmaysaa bohoshii ayuu ka baxayaa wayna laabmaysaa. Aasiya ayaa dhahaysa alla ma celcelaysay maskiin wuuna u soo baxay wayna farxaday waxay tiri waaba naxayba ina ay ka tagtay ayaan u qabay. Isla markii wax maqlayaan banaanka qaylo ka yeeraysa oo ka dheh war soo baxa ay maqlayaan waxayna arkayaan dadkii dhintay oo ku soo socda gurigoodii. Ninkiina leeyahay maanta igama badbaadaysan xagga aadiinba waxa idin roonna dhagaxa siisaan. Aasiya iyo Ibraahim fikrad ayay waayeen oo leeyihiin anigu waxaan ku dagaalamo haysto maxaa sameynaa ayay dhahayaan. Aasiya ayaa dhahaysa alla waxaan helay bu'dii hooyada igaga tagtay baashan ayaa ku dagaalamayaa waa arrin fiican ayuu dhahay Ibraahim. Ibraahim ayaa yidhi halkaa wadid noo bilow halka aan aragnay. Aasiya ayaa dhahaysa hadda ayaa bilaabaya ee waxaan ka rabaa inaad waqti ii gadid adle markaan ku iraado waqti ii gad inaad ii soo waysid. Aasiya ayaa sameynaysaa geedo dagaalamaya oo ridaya wax kolkoolo camal oo cagaar ah oo la dagaalamaysa qolfooftii. Ninkii ayaa dhahaya oo weli ana miyay la dagaalamaya ruux maxay hayeen. Ibraahim ayaa yidhi Aasiyo hal fiican ayaa wadaa wad ayuu ku yidhi. Aasiya ayaa dhahaysa waqti ii gad ayay dhahaysaa ayagoo yidhi waa si fiican aan kuu gaday ee wad aad ugu dagaalka joojinin. Ibraahim ayaa haddana la soo baxaya awoodiisii oo la soo ku tuuraya qolfoofta dhagax buluuga oo ku dhagaya qof baalkiya. Ibraahim ayaa dhahaya dhagaxiga ma shaqeynayo qofkan ku dhufto soo kacayaa ee waa maxaa sameeyaa. Ibraahim ayaa gelinaya baalada cagaarna mid ka mid ah dhagaxiisii buluugna. Baalka ayaa isku bedelaya baal buluuga oo yeelanaya awood fiican oo isku markiiba laba tuuraya oo ninkii qofkiina ka dhigaya qof qolfoof ka daranba ama dhagaxa. Ibraahim ayaa dhahaya yes. Ninkii qolfoofta ugu weynaa ayaa dilaya wixii oo dhan waxay Ibraahim qorshihiisan xaggaas ay ku fashilay. Aasiya ayaa dhahaysa waqti ii gad. Ibraahim ayaa dhahaya waa kuu gaday laakiinse maxay kugu taalaa. Ninkii qolfoofta ayaa dilay ciidankii ka mid ahaa Aasiya ciidankeedii ama dhirteedii mid ka mid ah ayuu ku istaagay. Aasiyana wixii ka jajabay. Ibraahim ayaa dhahaya anigu waxa ii fiican intaas waxba u gaar inaad iska siiyo waxiga. Aasiya ayaa dhasay masaasa isku dhiibto hadda fiirso waxaan sameeyo. Waxayba sameynaysaaba kuwa ka daran kuwii hore oo boqboqo iskugu tuuraya hal markii midda ku dhacaana aan mar la soo laabanin saas ayayna isku soo dhaayagoo dhan. Ninka ayaa dhahaya oo hadda masaasa lagu dilayba. Ibraahim ayaa gadaashiisa ka soo baxaya oo madaxa kaga dhufanaya wuxuu watay. Ibraahim ayaa xirxiranaya ninkii bahal yar soo baxaysa oo ka galaysa Ibraahim tunka. Ibraahim wuxuu hadiyad ku doosinayaa Aasiya oo ku dhahaya waa maasantahay maadaama aad ila garab gashay inaan ninkan soo xirxiro oo aan ka takhaluso.
way macsalaameynaysaa oo ku dhahaysaa bye bye xabiibi. Ibraahim ayaa ka baxay meeshii uu awalba kasoo baxay, wuxuuna kaga baxayaa weliba xaafadiisii dalaq uuba galayba. Walaashiis ayaa arkaysa oo dhahaysa ugu dambeyn adigu ma soo noqotay, waa ku xanaaqsanahay iimaada kaxeen. Wuxuu ku dhahayaa kaxinta waxaa kaa fiicnaa ku sheekeynaya bahalka Ibraahim tuu kaga helay ayaa soo baxaya oo arkaya dheemankii. saas ayuuna ku dhahayaa yes waxa rabay waan helay maanta. asxaabteeda intaas ayaan ku gabagabay sheekadeedii. fadlan haddaadan weli subscribe saarin madashiisa ka duceysana calaamada guduudka ku dhufo like noo reeb. waad mahadsantihiin. ramadaan kariim.